BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari haatan waa 2 duhurnimo oo gow ah. qodobadan idaacadeena idinkugu haynana waxaa ka mid ah baarlamaanka Puntland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay golaha wasiirada cusub. Ethiopia iyo Djibouti oo heshiis dhanka shidaalka ah kala saxiixday. waxaa kale oo dhegeystayaal barnaamijkeena ku maqli doontaan waxa weeye jiilba jiil oo ka dhaxlay anigaas hadda ninka weyna raggii aan dhageysan jiray markaan raadiyo xabadka saaranayay dad aan codkooda jeclaa ayaa jiray. raggaasi maanta ma joogaan. aniga safkii ku xigay baan ahay. annagu waa soo wareejinaynaaye khayran idinku ognahay. waa Axmed Cabdinuur oo muddo dheer ka shaqeynaya BBC oo shaqada ka tagaya waayihiisii saxaafadda ayuuna ka waramaya. Nigeria waxaa dib loo dhigay doorashadii madaxtinimo ee maanta la filayay inay qabsoonto. qodobada iyo kuwa kale oo ciyaari ay ka mid yihiin ayaa idaacadeena duhurnimo ku maqli doontaan. soo saraha barnaamijka waa Ciise Xaaji Cabdullaah anigoo Faadmo Macalin oo karaya idin la socodsiinaya. marka horese waxaan barnaamijkeena ku bilaabaynaa qodobada wararka caalamka iyo isla Ciise. mahadsanid Farma. Nigeria ayaa si lama filaan xalay dib ugu dhigtay doorashadii madaxtooyada iyo baarlamaanka muddo 7 ah. guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa 5 saacadood ka hor xilliga loo dareeri lahaa codbixinta go'aan ka shaaciyay in doorashada ay ku dhacdo xilliga loo cayimay haatan ma suuragelayso ayuu yiri Maxamuud Yacquub gudoomiyaha guddida isagoo farta ku fiiqay arrimo dhanka tasiilaadka ah awgeed. wuxuu sheegay in go'aanka laga maasan waayay loo qaatay si loo xaqiijiyo in codbixin xor iyo xalaal ay u dhacdo. madaxa ciidamada qaaska ee ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa Pakistan ku eedeeyay inay taageerayso kooxo mintidiin oo lagu eedeeyay inay dileen 27 qof oo ka mid ah ciidamada Iran ee maalintii Arbacada ahayd. Maxamed Ali Jacfari ayaa ugu baaqay Pakistan in ay tallaabo ka qaado Jaysh al-Adli oo uu sheegay in ay weerarka ka dambeysay. wafdi ka socda Kuuriyada Waqooyi ayaa gaaray Vietnam ka hor intuu Donald Trump iyo Kim Jong Un aysan yeelanin shirkoodii taariikhiga ah bishan. waxaa la aaminsan yahay in Kim Chang Son oo ah madax sare oo ka tirsan xukuumadda Yang oo ah sidoo kalena kaaliyaha madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un inuu ka mid yahay dadka goobtaasi gaaray. Bangladesh ayaa sheegaysa in 100 ka mid ah dadka ku lug leh musaafiriinta daroogada ay qabatay oo iminkan xabsiga u taxawday. waxaa lagu qabtay dadkaasi xadka u dhaxeeya Myanmar iyo dalkaasi. waxay sheegtay Bangladesh in dadkaasi iminkan la doono dhanka sharciga. warkii dunida waa naga taasaan dib idinku celiyo Faaduma. mahadsanid Ciise. dhegeystayaal haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadeena. aan ku horeyna dhegeystayaal magaalada Garowe baarlamaanka Puntland ayaa goor dhaweyd cod aqlabiyad leh ku ansixiyay golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. dhammaan xildhibaanada 63 qof ah ayaana codka kalsoonida siiyay wasiiradaasi. haddaba faahfaahin dheeraad ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa Garowe ka soo diray wariye Axmed Cabil Jaamac. baarlamaanka Puntland ayaa maanta ansixiyay golaha wasiirada cusub ee Puntland oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. 63 mudane ayaa howlka baarlamaanka Puntland fadhiyay. dhammaantoodna waxa ay u gacan taageen in ay xasaanada ay siiyeen golaha wasiirada cusub ee dhawaan la soo dhisay. Siciid Cabdullaahi Deni oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in caqabado badan ay haystaan oo xagga amniga siyaasadda ay ka mid tahay isla markaasna uu ka dalbanayo baarlamaanka Puntland in ay siiyaan xasaanada golaha uu soo dhisay ee xukuumadda Puntland taasi oo ka kooban 48 wasiir. waxaana goobta maanta joogay 47 hal wasiir oo lagu sheegay inuu yahay wasiirka waxbarashada Puntland ayaa ka maqnaa. wasiiradan cusub ee maanta baarlamaanka Puntland ee xasaanada siiyeen ayaa waxaa sugaysa howlad baaxad weyn. waxaana maalmaha soo socda la filayaa in ay shaqooyinka ay la wareegaan. Axmed Cabil Jaamac ayuu mahadsan yahay warbixintaasi noo soo jeedinaya. qaar ka mid ah dhegeystayaasheena oo qodobkaas raayigooda ka soo dhiibta haddii aan eegno waa Maxamuud Cabdinuur Cali oo jooga Muqdisho. waxa uu leeyahay baarlamaanka Puntland ee ansixiyay wasiiradii uu soo magacaabay madaxweyne Deni
waan soo dhaweynayaa waana in howsha u taala ay si hufan u qabsadaan waxaana eebe uga baryayaa inay noqdaan kuwii kasoo dhalaala shaqadaasi ayaa u leeyahay dhegeystahaasi iyo kuwa kaleba aad ayay u mahadsan yihiin haatana Nigeria doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Nigeria ee lagu waday inay maanta dhacdo ayaa dib loo dhigay iyadoo loo sababeeyay cillado dhanka farsamada ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegay in toddobaad dib loo dhigay doorashada wariyaha BBC-da Mayeni Jones ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Yola ee waqooyi bari Nigeria waa kan Axmed Nagaasho oo soo jeediyay waxaa la shaaciyay 5 saacadood ka hor markii goobaha codbixintu ay dalka oo dhan ka furmi lahaayeen shir degdeg oo ka dhacay xarunta guddiga doorashada ee Abuja kadib ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku waxa uu sheegay in dib u dhacaasi uu arrimaha muhiimka ah guddigu kula tacaalo Mahmoud Yakubu ayaa si aan wax faahfaahin oo dheeraad ah bixinin laakiin waxa uu sheegay in saacadaha dambe sabtidan maanta ay warar dheeraad ah soo saari doonaan labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa dhowr xafiis oo guddiga doorashadu leedahay dab la suray kumanaan mishiinada kaararka codbixinta la mariyo iyo waraaqihii codbixintana la gubay waxaa kale oo jira hadallo tibaaxayay in agabka doorashadu 36 gobol ee dalka qaarkood gabaabsi ku yahay Nigeria kuma cusba doorashooyin dib u dhaca labadii doorasho ee sanadihii 2011 iyo 2015 ayaa iyagaba dib loo dhigay dhowr maalmood nin ka mid ah dadka ku nool magaalada Lagos oo ka faarsan dib u dhacan la sheegay ayaa waxa uu yidhi for them to postpone this election is an arrangement in doorashada dib loo dhigo waa qorshe la doonayo in lagu shubto haddii aynu nahay shacabka dalkan taasi ama ahaarin aan aqbali karno and with the people of this country will never accept that doorashadan waxaa ku loolamaya 73 murashax oo dhammaantood u tartamaya xilka madaxweynenimada waxaana haatan tartanka ugu cadcad madaxweynaha talada haya Muhammadu Buhari iyo madaxweyne xigeenkii hore Atiku Abubakar waxaana doorashadan isu diiwaan galiyay in codkooda ka dhiibtaan 84 milyan iyo dheeraad qof nagaashaad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin magaalada Jigjiga oo lagu qabtay xuska magaalooyinka Itoobiya oo sanadkiiba mar la qabto halka wali aad nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag dhegeystayaal haatana dowladaha Djibouti iyo Itoobiya ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya waxay ku kala saxiixdeen heshiis ku aadan shidaalka laga soo saarayo gobolka ismaamulka Soomaalida heshiiskan oo balaayiin dollar ku kacaya sida la sheegay ayaa waxaa la isku afartay in shidaalka Itoobiya ay ka soo saarayso dhulka ismaamulka Soomaalida laga dhoofiyo dalka Djibouti haddaba wariye Maxamuud Cismaan Bulxan oo Djibouti ku sugan ayaan goor dhaweyd waxaan ka wareystay muhiimadda uu heshiiskan u leeyahay labada dal dowladda Djibouti iyo dowladda federaalka Itoobiya ayaa kala socday heshiis dhuumaha shidaalka looga soo qaadayo gobolka Soomaalida Itoobiya laguna keenay damarjoog oo laga dhoofin doono gaaskaasi waxaa dhanka Djibouti heshiiskaasi u saxeexay wasiirka tamarta Yunis Ali Gedi halka Itoobiyana uu saxeexay wasiirka macdanta iyo shidaalka Samuel Okado munaasabada heshiiskaasi ayaa waxay ka dhacday caasimadda Itoobiya Addis Ababa maxay tahay marka muhiimadda heshiiskan Bulxan muhiimadda ugu weyn Faadimo waxa ay tahay dowladda Itoobiya ayaa waxa ay waday sahamin ay ku sameynayso shidaalka gobolka ee dalkaas Itoobiya ku jira waxaana ay rabtay meel ay ka dhoofiso dowladda Itoobiya maadaama aysan lahayn marso muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jira wadahadallo u dhexeeyay isku dhafo oo labada wasaaradood ee tamarta iyo wasaaradda macdanta iyo shidaalka Itoobiya u dhexeeyay waxaana gabagabadii taas ay keentay in lagu heshiiyo mashruucaasi waxaana dhulka uu isku xidhaya u dhan yahay 760 kilomitir waxaana shidaalkaasi laga dhoofin doonaa marsada Djibouti ee damarjoog mashruucan ayaa waxa uu dhismihiisu socon doonaa 2 sano sida ku cad heshiiska Bulxan oo markaan eegno dhinaca Djibouti maxaa faa'iido oo heshiiskan ugu jira ugu weyn Djibouti heshiiskan ay ka helayso ayaa waxa ay tahay in uu heshiiskan kor u qaado dhaqaalaha jamhuuriyadda Djibouti isla markaana shidaalka ka soo baxa gobolkaas laga dhoofiyo Djibouti isla markaana calankiisa kale la geeyo dhanka kale waxa uu abuuri doonaa fursado dhaqaale iyo waliba shaqo abuur badan oo uu sameyn doono shacabka Djibouti
maxamuud cismaan bulxan oo qadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa. aad ayuuna u mahadsan yahay. qaar ka mid a dhegeystayaasheena ayaa qodobkaas ra'yigooda kasoo dhiibta. haddii aan mid ka qaato waa maxamed cali oo jooga hargeele dowlad deegaanka soomaalida. waxa uu leeyahay heshiiska shidaale jabuuti iyo etoobiya aan soo dhaweynayaa waana arrin wanaagsan, balse waa inay xukuumadda etoobiya maanka ku hayso ka qaybgelinta arrimahan ee dadka deegaanka muhiimadda uu leeyahay, waana in ay arrintu noqoto mid loo dhan yahay ayaa uu yiri. aad ay u mahadsan yihiin dhegeystahaas iyo kuwa kaleba. isla wararka etoobiya ayaanu ku guda jirnaaye xuska magaalooyinka dalka etoobiya oo sanadkiiba mar magaalo lagu qabto ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida. xuskan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda maamulada dalkaasi etoobiya iyo weliba marti sharaf kale, waxaana diiradda lagu saaraa horumarinta magaalooyinka. haddaba faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariye cabdinaasir sheekh maxamed xikam. maanta waxaa lagu qabtay magaalada jigjiga xus wadanka Itoobiya looga yaqaano xuska magaalooyinka. arrintan ayaa 10 sano ka hor wadankan Itoobiya go'aamiyay iyagoo laba sababood uga gol leh. hore waxay ahayd in magaalooyinka la soo koriyo oo uu kharash galo iyo miisaaniyad ay gaan xilliga xuskan oo kale u soo fooleeyahay. talabaadna waxay ahayd in aqoon-isweydaarsi la sameeyo oo magaalooyinka ay sameeyaan aqoon-isweydaarsi isla markaana halkaas wax badan ay ku kala bartaan. haddaba xuskan oo magaalada jigjiga muddo badan ka hor ay ku guuleysatay oo loo go'aansaday in iyada lagu qabto ayaa maanta lagu qabtay. kadibna waxaa maalmahan oo dhan ka socday magaalada jigjiga u diyaargarow xuskaas loogu diyaargaroobayo. sida la sheegayana waxaa yimid marti ka badan 20,000 oo marti ayaa ka timid oo inta badan dowlad deegaanada wadanka Itoobiya maamulada magaalooyinka u badan. xilligan aan hadda ku sugannahay Faadumoy ayaa waxaa laga yimid garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga halkaas oo saaka xaflad ka dhacday. waxaana ka soo qayb galay xafladan madaxweynaha wadankan Itoobiya gabadha la yiraahdo Sahle Warqa Zawde iyo waliba wasiirka hawlaha guud ee federaalka ee wadankan Itoobiya markii laga tago madaxda dowlad deegaanka Soomaalida. haddaba xilligan aan hadda isla hadlayno xaafadda la yiraahdo Dulqabow ayaa waxaa laga sameeyay garoon weyn oo waayahan oo dhan la dhisayay magaalo walbana in bay iibsatay. marka halkaas ayaa lagu fiirinaya waxaana laga yaabaa hawsha u taala marka wufuudan iyo dowlad deegaanka Soomaalida madaxdeeda maalmaha soo socda waxay tahay in ay sameeyaan shirar badan oo khibrad isweydaarsiya isla markaana qolow magaalo walba ay soo bandhigto waxyaabaha hodanka ay ku tahay ama dabiiciga ay u leedahay. sidoo kalena magaalooyinku waxay u tartami doonaan xuska dambe magaalada lagu qaban doono. magaalada jigjiga maanta ayaa lagu qabtay xuska dambe ay magaalooyinkuna u tartami doonaan. garsoorayaal baa jira wufuud la socda marka garsoorayaashaas xukmin doona meesha lagu tartami doono. madaxweynaha wadanka oo xafladan ka soo qayb gashay ayaa laga yaabaa inay galabta baxdo, laakiin wasiirka hawlaha guud ee federaalka waxa laga yaabaa inuu sii joogo isla markaana uu tartamadan iyo khibrad isweydaarsigan ay ka qayb galaan iyo maartay shirarkan la qaban doono ee magaalooyinka wadanka Itoobiya si loo kobcin lahaa diiradda lagu saarayo. cabdinaasir xikam aad ayuu mahadsan yahay. dhegeystayaal warbixino kale iyo ciyaariya ayaa inoo soo socda. weli halkaad nagala socotaana waa BBC. waa tahay dhegeystayaal ciyaarihii goordhow ayaad maqli doontaan. haatana sidii aad idaacadaheenii hore ku maqasheen maadaama ay BBC-da soo wareejinayso barnaamijyadii ka iman jiray London, waxaa shaqada ka tegaya inta badan shaqaalihii raadiyaha ee ka howlgeli jira xarunta London. waxaana idiin soo gudbinaynaa taariikhda qaar ka mid ah shaqaalahaasi. maantana waxaan soo qaadanaynaa waayihii saxaafadda ee wariye Axmed Cabdinuur oo ku jira maalmihiisii ugu dambeeyay ee shaqada BBC-da. Axmed wuxuu kusoo biiray BBC-da bishii Juun ee sanadkii 1996 tifaftiraha laanta af Soomaaliga ee BBC-da Cabdullaahi Cabdi Sheekh ayuuna u waramay. saxaafadda waxaan ka bilaabay tii dowladii Soomaaliya 1982 markaas ka hor macallin aan ahaa. marka ciyaarahana garsooraan ka ahaan jiray annagoo ciyaar qabanayna oo habeen ay tahay ciriirigii meesha ka jiray awgeed. waa ciyaaraha gobolada Soomaaliya oo dhan isugu yimaadaan bay ahayd. waxaa dhacday garoonkii dad baa kala lumay. intay noo yimaadeen miis aan fadhinay ayay waxay yidhaahdeen ilmo ayaa naga maqan hana loo baafiyo. mikrofon meesha yaalay oo garoonka samaacado ku xiran dadkii maqnaa ayaan garoonkii ka baafiyey. waqti yar kadib nin baa noo yimid markaasuu wuxuu yidhi waxaan rabaa wariyihii dadka baafinayay. saaxiibadii qosolay la daashay waxay yidhahdeen wariyihii waa kan. waxaan yidhi war anigu nin wariye maahay garsooraan ahaa meesha fadhiya. halkaas ayaa horta sheekada xooggeedu ka bilowday.
wasaaradda warfaafintan la xiriiray waxaa la igu yiri imtixaana la galaa marka imtixaankaas u diyaar garow liisa lagu qoray markii imtixaan la qaaday imtixaankii ayaan sidii ku galay sidii ayaan maaragtay shaqadii ku helay marka halkaas ayaan ka bilaabay 82kii ayay ahayd maxaa ugu weyn ood xasuusataa Axmedow ood ka soo tabisay ama aad intii la shaqeynaysay wasaaradda warfaafinta ee Muqdisho waxaa la ii diray nin ka mid ah 5 nin ee ugu sarreysay waddanka waxaa la dhihi jiray guddiga siyaasadda markaan u tegey wuxuu yiri itusi waxaad weydiinaysid itusi su'aalahaada waa tusay mid ka mid ah iska tiray waana su'aashii ugu muhiimsanayd meesha taas ay ahayd tii oo iska tiray wuxuu yiri inta kale weydii tan warkeeda iska daa waa kacaanka barakaysanaan iska ahayn amar lama diidi karo intii kalaan ka soo qabtay yani waxay ku tusaysaa xorriyadda saxaafadda sidii ahayd Axmedow BBC-dan sidaad ugu soo biirtay BBC waxaan ku soo biiray bishii June sanadkii 1996 waxaan noqday marka wariyaha laanta afka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho waqti adag ayay ahayd waayo magaaladu waxay u qaybsaneed Cabdullaahi Waqooyi iyo Koonfur waxaana kala xukumayay hogaamiye kooxeedyo aad isaga soo horjeeday oo dagaal aad u baahan u dhex maray dalkana sharci iyo kala dambeyn wax la yiraahdo kama jirin waqtigaas BBC-duna waxay ahayd isha kaliya laga heli karo warar Soomaaliyeed oo sax ah waayo inta kale dagaalada ay ku salaysanaayeen wixii maxalli ah koox loo leeyahay wax guudna meeshaba ma oolinba marka dhibaato badan ayaa runtii kala kulmay siyaasiyiinta qaar ama taageerayaashooda ayaa hanjabaad ii soo diri jiray sida waa ku dilaynaayo kale marka ay dhibsadaan warbixinada aan sii daynayay mid ka mid ah ayaa maalin igu canaantay horta niyahow warka maxaad u baraxdaa waxa aan kuu sheegay oo kaliya ma sheegtid yani annaga warku dhinacyo badan oo noo leeyahay Cabdullaah laba dhinac oo is haysay iyo qaybta saddexaad oo runta ahayd marka waxaas oo dhan aan rabaa inaan isu keeno isagu wuxuu rabaa wixii uu ii sheegay bis inaan idaacadda ka sheego أحمد عبد النور هذا ومهتسين وحنا ورمية تفترى لانتا في صوماليا BBC ذا عبد الله عبد الشاق هاتنا عيارية ديانا اقنو ماملاها كوحدة مانشستر سيتي بيب غارديولا يا كديجين كوحدي ساي ورر عروس كلا كل مدونتو كوحدة نيو بوت مانتا وذا يلان دونان عيارتا FA كابكا غارديولا يا شاقين عيارتو إذا كوحدة ساي كدا داري هنا إنا كحوق وين هنا عيارتو إذا سيتا يا وحا عيارية FA كابكا سنة كيوراي وقاهر توريكي شناد هاتنا رجستيال waxaad ku soo dhawaataan baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdullaahi Axmed Saciid Buraale oo jooga Boolashiq waxa uu baafinaya Muna Yuusuf Axmed waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2000 haddaba haddii ay maqlayso Muna Yuusuf Axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Axmed Saciid Buraale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka ama telefoonka numbarkiisu yahay 2526495867 Maxamed Xasan Cabdu oo jooga marka waxa uu baafinayaa Aamina Xasan Cabdu waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Canada 1995 haddaba haddii ay maqlayso Aamina Xasan Cabdu ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maxamed Xasan Cabdu iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marko ama telefoonka numbarkiisu yahay 25264772 Xaliimo Abiib Aadan oo joogta Shalambood waxay baafinaysaa Nuuruddin Abiib Aadan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ruushka sanadii 2004 haddaba haddii uu maqlayo Nuuruddin Abiib Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaliimo Abiib Aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marka ama telefoonka numbarkiisu yahay 2526989473 Leila Axmed Caliyo oo joogto Shalambood waxay baafinaysaa Saadiya Axmed Caliyo waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 1995 haddaba haddii ay maqlayso Saadiya ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Leila Axmed Caliyo iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Shalambood ama telefoonka numbarkiisu yahay 2526526077
cumar cali nuur oo jooga janaale waxa uu baafinayaa qaasim cumar cali waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 1997 haddaba haddii uu maqlayo qaasim cumar cali ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cumar cali nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay janaale amaba telefoonka numbarkiisu yahay 2526 eber 8 eber 956 rajaab xasan ramadaan oo jooga walaweyn waxa uu baafinayaa xasan rajaab ramasaan waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Tanzania 1997 haddaba haddii uu maqlayo xasan rajaab ama bay jirto cid garanaysa fadlan markiisa la gaarsiiyo rajaab xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay walaweyn xawlay xareed iimaan oo joogta jowhar waxay baafinaysaa daa'uud xareed iimaan waxa uu wardambeysay sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo daa'uud xareed iimaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xawlay xareed iimaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka numbarkiisu yahay eber 6564 eber 9 محسن علي سعيد oo jooga walweyn waxa uu baafinayaa Yusuf Xasan Ali waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Hong Kong 2012 haddaba haddii uu maqlayo Yusuf Xasan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Muxsin Ali Saciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay walaweyn Aamina Aways Roble oo joogta jowhar waxay baafinaysaa Yaasiin Aways Roble waxa uu wardambeysay sanadii 2003 haddaba haddii uu maqlayo Yaasiin Aways Roble ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aamina Aways Roble iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka numbarkiisu yahay eber 612 6682 94 مكاي حسن عثمان وجوجتو قولوين وحي بافنيسا عبد حسن قعل وحقور دمبيسي سو كسوغن إيتوبيا لبدي يكون يستحي طبنكي هدبا هديونا مغلية عبد حسن قعل أما بيجر تعد قرانيسا فضل مركي سهلا قارسيو مكاي حسن عثمان أيضا وحي ورا لوسي مرينكرو حفيز كبافن تبشا عسي كل هذا هاي قولوين ياسين نور محمد oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa hodan nuur maxamed waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka koonfur afrika sanadii 2005 haddaba haddii ay maqlayso hodan nuur maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo yaasiin nuur maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar ama telefoonka numbarkiisu yahay eber 655 eber 524 Faaduma Ahmed Ali oo joogto marka waxay baafinaysaa Sumaya Ahmed Ali waxa uu wardambeysay 2012 haddaba haddii ay maqlayso Sumaya Ahmed Ali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Faaduma Ahmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay walaweyn aadan salaad oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa Sumaya aadan salaad waxa uu wardambeysay sanadii 2007 haddaba haddii ay maqlayso Sumaya aadan salaad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Maxamed aadan salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka numbarkiisu yahay eber 617 eber ruqyo jaamac warfaa oo joogto marka waxay baafinaysaa Shamsa jaamac warfaa waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Hong Kong 1993 haddaba haddii ay maqlayso ruqyo jaamac warfaa oo joogto marka waxay baafinaysaa Yasmiin jaamac warfaa waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan Hong Kong 1993 haddaba haddii ay maqlayso Yasmiin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo ruqyo jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay mar إبراهيم أمين نور وجوج جوهر وحاو بافنا نمعة أمين نور وحاو وردن بسيدو كسوغن دلك كونفور أفريكا سنة دي لبدا كوني سغالكي هذا بهدي أنا مقليس نمعة أمين نور أما بيجرت عدران يسفل مركي هلا جارسيو إبراهيم أمين نور يدو حوار لوسي مرينكرو حافظ كبافين تبشع عسي كل هاي جوهر أما بتليفون كنو بركيس هاي إبرلي حالشان الله بتضبو سديد شنطة ضبط سمية آذن علي oo joogta Shanbood waxay baafinaysaa Sabrina Aadan Cali waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Canada 2010 haddaba haddii ay maqlayso Sabrina Aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Sumaya Aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Shanbood Maka Cabdulle Cumar oo joogta Jowhar waxay baafinaysaa Xaliima Cabdulle Cumar waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2005 haddaba haddii ay maqlayso Xaliima Cabdulle Cumar ama bay jirto cid
garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mako cabdulle cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6582918 xareedo xasan cabdi oo joogta afgooy waxay baafinaysaa sacdiye xasan cabdi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan jarmalka 2013 haddaba haddii ayna maqlayso sacdiye xasan cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xareedo xasan cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay afgooy canab axmed cali oo joogta jowhar waxay baafinaysaa diiriye axmed cali waxa ugu wardambeysay sanadii 2001 haddaba haddii uuna maqlayo diiriye axmed cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo canab axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6823279 xaliimo cali khayr oo joogto shalambood waxay baafinaysaa milyan cali khayre waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga 1993 haddaba haddii ayna maqlayso milyan cali khayre ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo xaliimo cali khayre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay shalambood abuukar cali mahdi oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa salaado cali mahdi waxa uu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayso salaado cali mahdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo abuukar cali mahdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6969895 saamiye axmed cabdi oo joogta afgooy waxay baafinaysaa cali axmed cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan hong kong 2013 haddaba haddii uuna maqlayo cali axmed cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo saamiye axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooy shukri cabdulaahi cumar oo joogta jowhar waxay baafinaysaa maxamed cabdulaahi cumar waxa uu wardambeysay sanadii 2002 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdulaahi cumar ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo shukri cabdulaahi cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 65524 yuusuf aadan guuleed oo jooga walaweyn wuxuu baafinayaa aadan yuusuf aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan talyaaniga 2011 haddaba haddii uuna maqlayo aadan yuusuf aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo yuusuf aadan guuleed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay walaweyn xuseen maxamuud nuur oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa xasan maxamuud nuur waxa uu wardambeysay sanadii 2000 haddaba haddii uuna maqlayo xasan maxamuud nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xuseen maxamuud nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6592171 maandeeq axmed hiloole oo joogta afgooy waxay baafinaysaa indhadeeq axmed hiloole waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Germany 2000 haddaba haddii ayna maqlayso indhadeeq axmed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maandeeq axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooy daahir nuur yuusuf oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa aamina nuur yuusuf waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yemen sanadii 2003 haddaba haddii ayna maqlayso aamina nuur yuusuf ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuur yuusuf iyadoo wixii waraa loo siiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 65213 cabdulaahi cabdi xuseen oo jooga afgooy waxa uu baafinayaa cali aamin xuseen waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2011 haddaba haddii uuna maqlayo cali aamin xuseen ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afgooy maxamed cabdulaahi xasan oo jooga jowhar waxa uu baafinayaa iimaan cabdulaahi xasan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka sacuudiga sanadii 2005 haddaba haddii ayna maqlayso iimaan cabdulaahi xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed cabdulaahi xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar amaba telefoonka nambarkiisu yahay eber 6559656 baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay mukhtaar cabdi kooshin oo jooga walaweyn waxa uu baafinayaa samatar cabdi kooshin waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jarmalka 2004 haddaba haddii uu maqlayo samatar cabdi kooshin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo mukhtaar cabdi kooshin iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay
walweyn baafintina maanta waa naga intaa aad ay u mahadsan yihiin caasho iyo weliba samiro baafintaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadeena duhurnimo waxaa inoo ballana saacadda marka ay tahay 5 galabnimo inta ka horeysa dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo